qisaskanaga abuurka iyo dhagartii Ibliis waxay inoo mareysay Ibliis oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka diiday inuu sujuudo ay inoo mareysay maanta waxaynu ka warrami doonaa arrin cajiib ah muuqaalkanagana ay ku saabsan yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo Ibliis ayaa dooday Ibliis baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala hortiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala u balamo adag ku galay balamahaasi si uu uga miradhaayana waatan imika ay qayb kamid ah ilmaha aadam ay yihiin kaafiriin gaalo Ilaahay ku caasiyay ay yihiin qayb kamid ah jinkana ay yihiin inta ugu badan qayb kamid ah taa ma ahan 97% iska dheh inay jinka kufaar yihiin gaalo ay yihiin ay 3% ay muslimiin yihiin marka Ibliis waxa uu la yimid balamo adag buu la yimid yaxdiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala markii uu sujuudiga ka diiday ee la yiri faqruj minha fa innaka rajim kadeg baa la yiri samada mid la fogeeyay baa tahaadigu yahay oo halkan laga marrabo dadka cisiyaanka la yimaada halkan laga marrabo halkan waxa jooga dad Ilaahay subhanahu wa ta'ala amarkiisa aanu caasinin wixii uu farana sameynaya hawasaqaynin baa la yiri ka dhaxbax marka waxaad ogaataa يعني شيء كستنا هل شيء باقرمي أشياء بدن هل شيء باقرمية إنك بالشوين كي ضدك سيدا ينول يهين وحضر كيسا أيقو وناكسن متقرى قف قرى مركو صور حقلو أو وسقه هو وسقين يا إذي الكود با سيدا سيدرتت بي وناكسن تاين هذا نوع صاحبك كدقاني سيد إن أتكفير صوته يقول لي هاي إذن حاسك يو أولاد دادو صاحب بضادو كلاواي مركرنا صاحبada maxaan u leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinka qiyaamo wuxuu tilmaamayaa yani maalin uu qofka yani maartay maalin ay farta qaniini doonaan dadka dhaalimiinta yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittaqadtu ma'a ar-rasul sabila Allahu gayay shalaatadayda maxaan maciga rasuulka ahaado maciga rasuulka jidkiisa maxaan u raaci waayay maxaan u ahaan waayay buu ku shalaynaya waa gaalku waa kan jiniga iyo kan kale ilma aadam marka yaa wiilata shakhsiga shalaynaya marka laytani lama taqida fulanan qalila qof hebelna maxaan saaxiib uga dhigtay iyo ku shalaynaya laqad adallani ani dhikrigi wixii uga mashquuliyay uu iga lumiyay aan wax dhikrigi ayuu iga mashquuliyay wax ii tari lahaa ما أنت سوسيدا ليه وأمر ميزانك إلهي سبحانه وتعالى ولا تاجو أو لا دياري حسابك لا دياري وأيو مركو فرتقنين وأيو ذكرك أيو أركض دونا أبال قدكي سيوحلوه ليو ذكري وحواي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سيدو كلنا ذكرك القرآن كمذا القرآن كدتك أن جوكتينين وهوق بأوسقنا ذي هوق روح كست قرآن كمرنا آخرنا يا مرنا يسكدينا يا هوق بأوسقنا ذي رنت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث بكتل وما يا قرآن كإنه نقنا يحجه القرآن حجة لك أو عليك قرآن كان منزل أما أذيقه كان نقنا يا حجه أما أذو حجك نقنا يا أما أذو كبد بادينا يا لجوضة أما أذو فرقك وقولك يا جهنم وقطورة يا ما إنك قيامه إلهي سبحانه وتعالى أنا مسألة راعية مركي ويري يعني حسوس درتيذو يعني فضيني قرآن كعرب كانوا فضيني مية جرتا يعني براكتيشن عند جوكتين سايني أخرسه يو إلهي سبحانه وتعالى عسيه وحاسوسته ليه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لإله سبحانه وتعالى the reason مركي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كانوا يسرنا القرآن وليه هاي القرآن كان بروسيس بدن بو صومري حتى إذن إلهي سبحانه وتعالى إذن وحوت المام يا آيات كيسا إن لا صرفي كدبنا صرفات دي آيات كان آيات كالله صرفي وكسر دحساري تمثيل تصالة قرات كآدمها سودة وين كرا محا كمدا نارتا أيا كمدا نارتا إلهي سبحانه وتعالى مركو تمثيلين يو لما أركن معنه ضدكو وحي أركي كران شيء أركتديس أضل قادن كران معها الدنيا دونا دنبل كمدا دنبشا نارتا
haddii ay boodo adduunyadu ay ku dul dhacdo adduunyadu way hoogaysaa adduunyadu waxay noqonaysaa dambas bay noqonaysaa way adag tahay naarto sidaa darteed buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sarrifay aayadaha Qur'aanka tamthiilu ka soo saaray marka jannaduna sidoo kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay wuxuu tilmaamayaa tusaale haddii aan ka soo qaado tusaale hadda naqliga Ilaahay naqlika waa timirtu anagu way noo baxdaa adduunka way ka baxdaa waxa adduunka waxa ka baxa waxa kamida zaytuunka kamida waxyaabaha soo dhan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu tilmaamayo tamthiilka uu ka bixinayo jannada miraheeda kamida macnuhu ma aha inaad isla barbar dhigto jannada miraheeda iyo miraha kane adduunka yaala isma lahan jannada miraheedu way dhameystiran yihiin caafimaadna ayaa all mineralski lagu talagalay vitaminski iyo mineralski iyo proteinski wixii oo dhan lagu talagalay ayaa loo idilay ayaa loo dhameystiray jannadu waxa yaala cunto ah soo marka inta badan waxa la yiraahdaa dhaqaatiirtu waxay tilmaamaan cuntadu yani waxay ka dhalataa cudurrada waxa sababa ayay dhahaan bakteeriyada ka dhalata cuntadu iyo ma aragtay cuntadu inaanay isla dheelitirnayn oo balance aanay ahayn ayaa ka dhalatay wax walibana ay yihiin wax dhiman ay yihiin sidaa darteed baa la isticmaalay wax la yiraahdo supplementary diets wax la yiraahdo yaa la isticmaalay